marka hore waxaan u mahadcelinayaa allihii maanta isugu keenay oo taariikhdu ay tahay 13 bishii 6 2019 barnaamijka isxilqaan wareegiisii 6 oo maanta ay ku soo aadnay annagoo ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta sidaad u jeedaanba goobtan hadda waxaa ku sugan dhammaan shaqaalihii wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta oo maanta si xawli ah uga soo qayb galay barnaamijkan isxilqaan markaan hadda xawli leeyahay caadi ma aha maanta hawsha ay shaqaalaha yimid iyo hawsha la qabtay intaba waxaa ku sugan goobtan agaasimayaashii wasaaradda la taliyayaashii madax qaybyadii xirfadleydii karraaniyaashii iyo dhammaan qaybihii kala duwanaa oo wasaaradda oo maanta u soo diyaar garoobay in ay ka qaataan kaalin mug leh barnaamijka isxilqaan oo wareegiisii 6 maanta aan ku soo aadnay waxaan dhihi karaa maanta anigoo marqaati gashanaya saaxiibaday oo runtii mas'uuliyadda isxilqaan daadihinaya sida wakiilka xafiiska ra'iisul wasaaraha Marwo Maryan iyo wakiilka shaqada iyo shaqaalaha agaasime Ismaaciil iyo xubnaha kale oo la daadihinaya shaqada anigoo maanta inaan u faanaba aan doonahayo waxaan maanta uga soo qayb galnay si aan caadi ahayn barnaamijkan shaqada aan qabanana way muuqataa dhammaan xubnaha kala duwan ama hay'adaha kala duwan ee dawladda waa ku dhiirigelinayaa in barnaamijkan aan ku soo dhiirrano dhammaanteen waxaan dhihi karnaa wuu najaxay barnaamijkan barihii hore xaqiiqa waxaan dadku islahaayeen waa inta iyo waasaan iyo la islahaa laakiin isha macallina maama Soomaaliya waxa la yiraahdaa jirta sadar muuqda su'aal ka dhan isha macallina way muuqataa shaqadii la qabtay waxay ka muuqataa madxafka maktabka iyo tiyaatarka qaranka intaba way ka muuqataa intaas waa hawshii muuqatay xaqiiqa shaqaale weynaha dawladda waxaan dhammaantiis ku ammaanayaa qaybaha kala duwan ee ka soo qayb qaateen bilihii aan soo dhaafnay oo horteenna ahaa sida ay uga soo qayb qaateen dhammaan waan ku ammaanayaa gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo wareegii 6 soo gashay mar walba sidaan ayaan uga soo xaadiraynay waxaana warbixinta iyo kala horumarinta aan ka sugaynaa mas'uuliyiinta barnaamijkan waan dheereeyay hadalka waa idin salaamayaa dhammaantiin waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Marwo Maryan oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda shaqada Ismaaciil agaasime Ismaaciil ka socdo iyo xubnaha kale iyo waxaan ka marnay shaqaalihii wasaaradda arrimaha gudaha oo u jeedaan dhammaantiis inay diyaar garoobeen gabdhihii oo xubno kala duwan ah agaasimayaashii waaxaha madax qaybyadii iyo la taliyayaasha intaba maanta taagan intaba waa u mahadcelinayaa iyo mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasiir dawlaha wasiir ku-xigeenka xogayaha joogtada iyo dhammaan xubnaha kala duwan waxaan leeyahay maanta waan qabanay hawshan oo loogu talagalay gacantana kor u taaga